بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة وحصوصنا إنه in rabbi subxaanahu wa tacaala acmaasha inaga aqbalo qofka muslimka ahi cibaado kasta uu sameeyo ha noqoto soon ama salaad ama xaj ama sako ama sadaqo cibaado kasta uu sameeyo wuxuu isweydiinayaa rabbi ma kaa aqbalay mise lagaama aqbalin walidaalik ayaa saxaabadii waxaa laga warinayaa caliy bin abi aalib inuu odhan jiray layta shacri man ilmaqbuulu fanuhanniih wa man ilmaxruumu fanucaziih waxaa laga sheegaa cali inuu odhan jiray talow waa kumaka laga aqbalay oo aanu bogaadinoo hambalyayne waa kee ka maxruumkii aan waxba laga aqbalini aanu tacsiyadayne waxaa la sheegaa ibnu mascuud radia allahu canhu wa ardaah inuu odhan jiray ayuha almaqbuulu hanii'an lak ayuha almarduudu jabbara allahu musiibatak inuu odhan jiray kan laga aqbalay camalkow hanii'an lak bogaadin baa kuu sugnaatay hambaliya kuu sugnaatay ayuha almarduud kan camalkii lagu soo celiyowna jabbara allahu musiibatak dhibtaada allaha kuu kabo allaha ku kaalmeeyo walidaalik ayaa caliy bna abi aalib radia allahu canhu waxaa kaloo laga sheegaa inuu odhan jiray laa tahtamuu liqilati alcamal wahtamuu lilqabuul camalka yaraantiisa aada ha uga fakerina ee waxaad ka fakertaa ma yahay camalkani mid rabbi kaa aqbalaya mise maaha qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramayaa qisatu bnay aadam labadii aadam dhalay ee ugu horreeyey oo qurbaan iyo acmaal saalixa sameeyey oo midna laga aqbalay midna laga aqbali waayey oo sababtay isku dileenba markaa ay taasi ka dhalatay kii laga aqbalay wuxuu u sheegay kii laga aqbali waaye ilaahayna uu qisadaasi ku tacqiibiyey innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay acmaasha wuxuu ka aqbalaa kuwa rabbi kaga cabsada idan waa wax warwar leh inaad acmaal la samayso kana cabsi qabtid in laga aqbali waayo waayo aakhiro ilaahay dad buu sheegayaa camaashoodii la aqbali waayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura wixii ay camal sameeyeen ayaanu u soo horu marinay baa ilaahay leeya waxaanu ka dhignay boodh la hurgufay ama la saydhiyey siiga ama boodh haddii la hurgufo wuxuu noqdaa wax wada iska raaca oo aan wasni ama culays maas aan lahayn ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul hal nunabbi'ukum bilakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اddunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca ma idinka waramaa kuwa acmaashoodii khasaartay acmaasha dhankeeda kuwa khasaaray waa kuwii shaqeeyey ee moodayay inay wax fiican samaynayaan ee aan haddana la aqbalin walidaalika acmaasha ilaahay aqbalaya sifaad gaaru ku sheegay waman araada alaakhira wasacaa laha sacyaha wa huwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ninka aakhiro doonaya ee shaqadii aakhirana qabta wasacaa laha sacyaha shaqadu qabanaya ay tii aakhiro tahay wa huwa mu'min
walxaal huwa mu'min camalkaa isagoo qabanaya uu mu'minyay kuwaa sacyigood iyo shaqadoodu waa mashkuur, waa kuwo looga mahadnaqo, waa kuwo laga aqbalo. mashkuurnimadu waa maqbuulnimo, waa kuwo laga aqbalay. haddaba ayuha alxiba, acmaasheenna daacad aynu samaynaynaa kow ilaahay waxba uma katarto, waxna uma kordhiso, laakiin innaga ayay waxayna tartaa. saa awgeed baa ilahay wuxuu leey waman yashkur fainamaa yashkuru linafsih. cidda mahadnaqda mahadnaqa abaalmarkiisa isagaa iskale baa ilaahay leeyay. waman kafar faina allaha haniyun xamiid. ninkii gaaloobana baa ilaahay leeyay ilaahay waa ka deeqtoomaa. adigoo gaalana rabbi wuxuu yahay kula mahadiyo, adiga kaagama baahna waxba. idan acmaasha waxaa laynoo tilmaamaya inaynu inagu for ourselves inaynu danteenna u samaynayno. sida awgeed qofka mu'minka ah isagoo camalka samaynaya ayaa haddana cabsiyay ula jirtaa oo isweydiinaya qurbada tan iyo qurubaadka kan iyo acmaashan sane aad samaynaysaa cinda allaahi wax la aqbalaya ma tahay. caaisha radia allahu canha baa waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan aayad qur'aana tafsiirkeeda weydiinayaa bay leedahay. waxay tidhi waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun. ilaahay rasuulkiisiiyow kuwa ilaahay leeyay waaladiina yu'tuuna maa aatow, kuwa la imanaya amase bixinaya waxay bixinayaan iyadoo waquluubuhum wajila, iyagoo cabsanayo qalbigoodu cabsanayo. kuwa wax sameeya haddana cabsidu ku jirtaa bay leedahay ilaahay rasuulkiisiiyow ahum aladiina yashrabuuna alkhamr wayasriquun. waa kuwa khamriga cababah ee tuugadana sameeya ee waxoogaa camal wanaagsanna samsamayn ma kuwaasaa? nebigu wuxuu ku yidhi may, laa ya binta sidiiq, ina abi bakaray maya, walakinahum aladiina yasuumuun wayusalluun wayatasaddaquun wahum yakhaafuuna anlaa yuqbala minhum ulaa'ika aladiina yusaaricuuna fi lkhayraat. waa kuwa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam soomaya ee salaad tukanaya ee sadaqo la imanaya ee rabbi ka cabsanaya ee haddana ka cabsi qaba acmaasha in laga aqbali waayo. acmaasha in laga aqbali waayo. su-aashu markaa waxay tahay camalka maxaa lagu aqbalaa? markaynu maxay samayno ayuu camalkeennu maqbuul yahay? goorma camalka la aqbalaa? ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa nebi ambiyada ka mid oo ilaahay baryayoo leh waan acmala saalixan tardaahu. ilaahu waxaan kaa baryayaa inaan camal suuban sameeyo, laakiin bishard camalkaas suubanoo midaad raalli ka tahay ah, midaad aqbalaysa ah buu leeyahy. ayuha alaxiba, sixada iyo qubuulka waxbaa u dhexeeya. camalku inuu asaxay iyo in la aqbalay waa kala laba. camalku inuu asaxaa wuxuu ku xidhan yahay wixii shuruudiisii iyo waajibaadkiisi iyo wixii uu lahaa ee caamka aha eanu naqaanay fiqigu ka warrami jiray inuu wato. yacni qofka camalka sameeyey inuu mu'min yahay kow. ka labaad inuu shareecadii waafaqsan yahay. oo maalan salaad baad tukatay, salaaddu shuruudeedii inay yeelato, inaad tahaaro qabto, inaad weysadaadii qabto, inaad qiblada u jeedo, wixii ay ku asixi jirtay hay-aadkeedii iyo arkaanteedii iyo waajibaadkeedii inaad la timaado. kaasi wuxuu keensadaa qubuul, wuxuu keensadaa baan u jeedaa sixa inay asaxday. amaa in laga aqbalaa wax dheeraada bay u baahantay. waayo acmaashu qubuulkeedu kow sixada wuu ku xidhan yahaa, sixa daahira inay de sharciga waafaqsantahay kow way tay. laakiin waxay kaloo u baahan tahay waxa qalbigaaga ku jira ikhlaas iyo iimaaniinta u leegyahay, iyo inaanay jirin mawaanic ama wax ishortaagaya oo kaloo aad samaysay. mithaal, nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mawaanicda khaarijiga waxyaabaha camalkaaga diidaya in la aqbalo isagoo ka warramay wuxuu leeyahay midkiin mid baa gacmaha kor u taaga
isagoo leh yaa rabbi yaa rabbi, rabbigayow rabbigayow isagoo leh. laakiin waa ma goortuu gacmaha taagayaa isagoo buu nebigu yidhi wama'kaluhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun wagudiya bilxaraami, isagoo wuxuu soo cunayaa xaaraan tahay, wuxuu huwan yahay ay xaaraan tahay, wuxuu ku soo qadeeyay ay xaaraan tahay, fa annaa yustajaabu lahu buu nebigu yidhi, oo kaasee wax looga aqbalayaa. oo macnuhu muxuu tilmaamayaa maalan salaadda in la aqbalay iyo inaan la aqbalin maxaa u dhexeeya? salaaddu inay asaxday iyo inaanay asixin maxaa u dhexeeya? kow, salaaddu haddii arkaanteedi iyo shuruudeedi iyo waajibaadkeediiy waxay lahayd lala yimaado sidii fiqigu qorayay, mu'minna a tahay, waa asaxda min xayu asixa. haddii waxaa wax ka dhiman yihiin ma asixin, oo ruknaad ka tagtay ama meelaa qiblada ahayn baad u jeesatay ama wixii ay ku asixi jirtay wax ka midaad daloolisay, ma asixin. laakiin su-aal labaad bayna imanaysaa markaa, ma la aqbalay mise lama aqbalin markaynu idhaahno macnaheedu waxa weeyaan ajar ma ka helaysaa mise ka heli maysid? ajar ma ka helaysaa mise ka heli maysid? oo xaggee wax iska dhaafsiisayiin? nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dad saf ku wada jira oo salaad tukaday oo dabeetana salaadoodii aanay sinnayn. mid baa laga aqbalaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cushruha, salaadda cushurkeed, cushurku waa 1/10, waa 1/10 ama waa 10%. mid baa laga aqbalaa 10%. marka waa tukatay, salaaddiina way asaxday, laakiin ajarka waxaad leedahay markay ajarka timaado 10% baad leedahay. oo waa maxay? waa tukanaysay laakiin maanta o dhan waad isu sheekaynaysay, suuqaad maraysay oo waxbaad dilaalaysay oo cid kalead ka warramaysay, oo waxaa laga yaabaa intaad soo jeeday inaanay in badan ba ahayn. intaad ila salaada waxaa loogu talagalay inaad ilaahay la hadasho o weynayso. qofka mu'minka ahi ilaahay buu hor taagan yahay, dabeetana rabbuu la hadlayaa. ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad aniga toos iila hadlaysaana waa kuu jawaabaya. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhaahdo xamidanii cabdii baan odhanayaaba rabbi leey, addoonkaybaa ii mahadnaqay, ima hadiyey. alraxmaan alraxiim markaad tidhaahdo ahnaa calaya cabdii baan odhanayaa, addoonkaygiibaa i ammaanay. maaliki yowmiddiin markaad tidhaahdo majadanii cabdi, addoonkaygiibaa ii weynay. ilahay wuu kula hadlayaa. laakiin haddaanad ogeynba inaad faatixada akhriday iyo inaad akhriday alxamdulilah rabbi alamin, laakiin xisaabtaadaad iska wadatay. imaamku markuu assalaamu calaykum yidhi unbaad baraarugto, adna assalaamu calaykum tidhi. nin shaydaan la yidhaahdo oo khatarah oo u gaara salaadaha inaga shaqeeya. iminka haddaad cunno cunayso wax kale ma ka fekertaa mise cunadunbaad hamtaa ku haysaa? fekeri maysid. haddaad tv-ga daawanaysa wax kale ka fekeri maysid, waa iska daawanaysaa waxa uu sheegay unbaad arkaysaa. hadduu qof kula hadlaya wax kale ka fekeri maysid. salaada markaad u kacdo unbaad dunida lasoo ururinaya. markaad waxa kale qabanayso shaygaa camalka aad hayso unbaad ka fekeraysaa. shaqo kale markaad hayso o dhan, haddaad imtixaan ku jirto isagaad ka fekeri, haddaad shaqaysanayso shaqadunbaad ka fekeri, haddaad waxaad qabanaysa kalead ka fekeri. mar allaali markaad salaada isu taagto ayuunbaa qolo kale imanaysa, una markaasunbaa adduunka lagugu soo ururinaya. idan saa daraaddeed nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam mid baa tukado salaadiisa 10% leh, mid baa le baa la yidhi tusucaha, tusuc waa 1/9, waa xawaalay less than 13% meelahaasuu noqonaya. mid baa le thumunkeed baa la yidhi 1/8, 1/8. mid baa le ilaa iyabuu nebigu soo gaadhsiiyey nisf, mid baa leh 50% salaadiis. idan salaada waynu ku jiraa oo safka waa wada taagannahay. cinda allaahi se waxaa la qorayaa isku noociyaad maaha. salaadiina way asaxdo, shuruudeedii waynu samaynay, laakiin markay ilaahay agtiisa joogto isku nooc noqon mayso. marka waxaa laga yaabaa nin 20 sano tukanayey mid sanad tukanayo saadiq ahaa inuu kaaba ajar badan yahay. sanadkiisu sanad mintida oo uu soo jeedo rabbi uu caabudayay. idan anigu weligay baan soo waday kan yari muxuu sheegay weligaa qof ay yaraysanin muslima garan maysid cidda laga aqbalay garan maysid. adigaagii 30 sano soo waday waxaa laga yaabaa inaad 10% weligaaba waday ama 0ba qaarkood ay ku dhaceen. dee mid mintida hadduu yimaado 50-50 laga aqbalayo,
shantaadii maalmoodba maalin isagaa, shantaadii sannadoodba sanad isagaa bay noqonayaan. idan wuu kaa badinayaa. idan markaynu qubuulka ka warramayno waxaynu ka warramaynaa cama fi lquluub, waa mar. waxaynu ka warramaynaa mawaanic khaarijiya inaanay jirin, wax manciyo oo joojiya salaadaada in la aqbalo. matala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، xadiidka ibnu maaje xasanka. 3 salaadooda taaka in leeg madaxoodaba ma dhaafto. midna ogsoonow, salaada markaynu dhahna lama aqbalin macnaheedu ma waxa weeyaan waad soo celinaysaa? maya, ajza'at, waa gudday salaadnimadii. lagu qabsan maayo aakhiro, laguma laha salaaddii ma tukanin. aakhiro inta lagu soo taaga lo odhan maayo ninkani maxay salaad ma tukanin. laakiin dee qabsasho qura maad u soconin, waxaad u socotay inaad ajar urursato. waxaad u socotay in la yidhaahdo asalaam bay 2 salaadood inta udhaxaysa takfir maa qablaha, salaada kale dembigeeda inay kaa maydho. dadka barh baa su-aala isweydiiya, niyu salaad waliba salaada ku xigta hadday dembiga maydhayso, maalan ramadaan ilaa ramadaan maxay maydhaysaa, ama jimca ilaa jimca maxay maydhaysaa? dee taadu mid yaroo naaqusa bay ahayd oo wax badan may maydhin. markii horead 10% iyo 5% iyo 15, marka haddaad isku jaabaysataa laga yaabaa inay maxay shantii waxoogaa maydho, jimcii waxoogaagii soo hadhay badh maydho, oo ramadaanta intii soo hadhay badh maydho. haddaad dadaalka badiso waa laga yaabaa inay isbiirsato. laakiin nebigu wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam 3 salaadooda madaxooda lama dhaafiyo. rajulun ama qowman wahum lahu kaarihuun buu nebigu yidhi. nin dad jujuub iskaga haysto salaad tukiyey iyagoo aan rabin salaadiisa, waa khatar. dee malaaka dowladdan iyo daddan qasabka ku haystaana ma dhaamayaan u malaynayaa. dee salaad qura hal salaada kii ku haystay haddaan waxba helaynin ummadda dhan iska afduubtayna malaha ma dhaamayo. laakiin xadiidka naskiisi wuxuu sheegayaa man ama qowman wahum lahu kaarihuun, ninka dad imaam u noqda iyagoo neceb oo aan rabin. walidalik a'imada masaajidda iyo ragga masaajidda tukiya waxaa fiican inuu quluubta dadka ilaaliyo, oo dadku qof ay raalli ka yihiin inuu noqdo maxay qofka dadka tukinaya. oo masaajidka inaan lagu haysanin un maxaa qorsakaarmay tirahdaan, maxaa tiraha inaanu iska afduubanine, inay muslimku wada socdaan, qulubtu inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan. sidaa ogeed buu nebigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun, gabadh hoyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo. idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso. wamra'atan casat zawjaha xataa tarjicna xadiid kale sheegayay. ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan, laba walaalo oo kala iska laalaada. xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya, qof kastaoo laa yushriku billahi shay-an, marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigoo dhaafo. xadiidkii sheegayay saxiixaynka ku yaallay 2 mooyaane buu nebigu yidhi. labadaasi waa kuwee? 2 ishaysta iyaga waxaa la idhaha andira haadayni xataa yastalixa. labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilahay yidhahda intay ka heshiinayaan. idan akhwaan mutasaarimaan, haddaynu isu wada cadhaysanno iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa. haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto, waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa. qofka mu'minka ahi nebiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayey? aakhiro wuxuu weydiisanayey qalbigiisa in alla ka dhiga maxay? qalbi caafimaad qaba. sidaa awgeed waxyaabaa jira camalkii inaga burinaya ama in cinda allahi maqbuulu noqdo xumaynaya. maala qur-aanka ilahi wuxuu leeyay ya ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani wاlأdaa. war kuwa iimaanka laga helayo waxaa ilaahay dartii ula baxdeen adiya, dhib iyo gallad sheegase ha ku burinina. haddaad intaad wax bixiso un ka daba hadasho, ninkaa beraan si fiican u galay, qoladaa biil baan u diraa maalin kasta lacag joogtaa baanse ha iska burinin. waad dirtay, ajar baad doonaysaa,
ilaahay baad la baac mushtaraynaysaa. qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysa. haddaad adduunye ku doonaysa waa halkeed ood salada isla markiisaa ku abaalgudo. laakiin asalka qofka mu'minka waa maxay? wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaaraysanaya. waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato. markaad bangiga tagtay accountka lacag ku shubato, sooma rumaysnidan adigu leedo account ku shubatay. tanaad baxsatayna waxaad rumaysan tahay accountka aakhira inaad ku shubtay. saa daraaddeed waxaad rumaysan tahay inay tahay kayd adigu aad kaydsatay, cid kale waxaad siisay maaha. qofka muslimkii saasuu u fakeraya. waxaanuu la baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay. haddaba kaydkaaga ha iskaga burinin baa ilaahay leeyahy. inaad sheegto oo aad mani aad dadka ugu gallad sheegato, amase adiya iyo dhib inaad ka dabageyso. sida awgeed waxaan leenahay ayuha alaxiba, acmaasha in laynaga aqbalaa. maalan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ninka caraaf u taga kuwan faalfaaliya waxaa kane rumaysta wuxuu sheego maxay? xadiis riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen inaan 40 yowman maxay camalkiisa la aqbalin. oo 40 cisho camalkaaga la aqbali maayo haddii la yidhaha miyaad salaada iyo waxba iska dirisa maya, waxba waad tukanaysaa. waayo dimadaadaad rabtaa inaad beri yeesho, tajzi'uk, qadaa lagugu yeelan maayo. laakiin dee ajarkii la rabay ayaad iskaga lugoynaysaa. halkaad ajar ka heli lahayd ayaad ajarkii nuqsaaminaysaa. haddaba ayuha alaxiba, waxaynu u baahannahay cibaadaadkaynu ilaahay ula imanayno subxaanahu wa tacaala inaynu xumaha ka ilaalino, inaynu qurunka ka tirtirno, inaynu maxay qalbigeennu uu noqdo qalbi soo jeeda. waayo maa fi lquluub, xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gedisayin baynu dhi waxa qalbiga ku jira. oo maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyey, sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin buu nabigu yihi. hal dirham oo sadaqa loo bixiyey ayaa ka fadli bato ka dheereeyey 100,000 oo dirham buu nabigu yidhi. 100,000 oo dirham suu uga badanaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay culammadu leeyihin dirhamkan uu sheegay, maalan markaad soo qaxaysay ama markaad soomaaliya ka qaxdeen adigoo aan waxba haysan oo $10 sita xoolo, waanay kaaga dambaynin oo waddana aad garanayn joogo dee 10kan la xajeclo ka badan boqolaalka kuwa haystaa kaaga jira. haddii aad mid 5 u dhiibto waad la naf qaybsatay markaa weeyaan. nin balaayiin iska haystaa hadduu in yar ka xoobiyo mid u tuuro 100,000, isaga agtiisa $5 qiimahay kugu joogtay kuma joogaan maxay boqolaalka kani. idan xaaladda aad ku sugantay, iimaanka qalbigaaga ku jira, ilaahay sidaad u weynaynayso, aakhira sidaad u hunguraynayso, waxaasaa waxay qiimo u yeelayaan cibaadaadkaad la imanaysaa intay leegtahay. markaa camalka lama yaraysto. dirham ha noqdo ama 2 ha noqdo ama ha ka batee, camalkaaga ha yaraysanin. xataa waxaa axaadiistu tilmaamaysaa tawxiidkeennu. sow laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ma wada lihin dhammaanteen? sow dad muslimiina ma wada nihin? xataa laa ilaaha ila allahdeenu isku qiimo maaha aakhira markaynu tagno, isku qiimo maaha. waayo axaadiista nebigu waxay sheegaysaa calayhi salaatu wasalaam qaar aakhiro tegey oo tawxiidsaday laakiin dembiye galay, dabeetana dembiyadii ay sameeyeen lagu ciqaabay oo cadaabka galay. laakiin cadaabka ku waari maayo. horta laa ilaha illa allah mar kasta waxbay taraysaa. waayo cadaabka inaad ku waarta habay kaa ilaalinaysa. gaalkaa cadaabka ku waaray qofkii muwaxidka ahaa xataa hadduu cadaabka galo wuxuu ku jirayaa maxay muddo. laakiin dee muddadaa ilaahay garanaya. 1 milyan oo sano haddii lagu cadaabo ka war, haddaad tidhaahdo kolley waa tawxiidsanaysaa naarta waad ka soo boodiye, boodisteedu ma fududa. marka walciyaadu billaah, ilaahay baan ka magan galaynaa. laakiin waanad ku waaraynin, waad ka soo baxaysaa aakhirkii. waxaa kaloo uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid inta la soo taago la keenayo 99 sijilla, 99 fayl baa la keenaya oo dunuubuu galaya. kan ma gashay, kan yaa rabbi haa buu leeyahy, waa qiranaya. waxaa la leeyahy wax xasano aanu kaa dulminay miyaad garanaysa? wax xasanaadkaagii maqan oo aan meesha ku oolin miyaad garanaysaa? may buu leeyahy yaa rabbi. xadiisku wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa xasanaanu ku haynaa weli, mid baa ku hadhay. dabeetana bataaqaa la keenaa buu nebigu yihi, waa kaadh. sijillaadka waxaa la yidhi mashriq iyo maqrib bay sijil weliba uu taxan yahay. tani laakiin waa kaadh, waa bataaqa la keenaa.
bataaqadaasi waxaa ugu qoran tawxiidkiisii dabeetana waa la saaraa miisaanka wuxuu xadiidkaasi tilmaamayaa inuu bataaqadaasi waxaan oo dhan ay ka cuslaan doonto yacni waxaa meesha ka cad dadkii wada tawxiidsaday inaan tawxiidkoodu isku qiimo goynin qaar dunuubtii ay galeen ee zinadii iyo rabshadihii iyo wixii ay galeen inuu wada maydhi kari waayey dabeetana in naarta lagu soo daahirinayo qaarna waxaa la tilmaamayaa tawxiidkiisa culayskuu leeyahe ilaahay siduu u weyneynayay uga cabsanayay ee rabbi qalbigiisa u deganaa tawxiidkiisaasi inuu miisaan weyn yahay oo dunuub badan uu la degayo tawxiidkaasi haddaba waxaynu leenahay acmaasheenna waxay u baahan tahay kow atanqiya intaynu nadiifin karna inaynu nadiifinno waxaynu cunayno inaynu xalaal ka dhigno waxaynu huwanay inaynu isku dayno inuu xalaal noqdo dadka inta badan how much you earn un baynu isweydiinaa waxay doonaha kugu soo galo laakiin waa mushkilad waxay ahayd inaad isweydiiso maxaad xalaal xoogsatay waxa kale aakhiro iyo adduuntoona anfac ma leh maxaa xalaala si cibaadaadkaaga aanay u qarribin si diinkaagu aanu u xumaanin xalaasha inaad ku dadaashid ducadaadu si ay cinda allahi maqbuul u noqoto waxaa habboon markaa acmaashaynu samaynayno o dhan sumca iyo riyaa iyo istus iyo ismaqashiin iyo waxaasoo dhan inaynu ka dahirno inaynu ka dhigno acmaal lilaahiya ilaahay dartii un waxaad u samaynayso waanada cid kale waxba kaga raadacaynayn waxaynu u baahannahay acmaal aynu aqoon u leenahay oo marka hore shuruudu sixa soo hesha oo cinda allahi maqbuul noqon karta inaynu noqonno walidaalika ayuha alaxiba qur-aanku wuxuu inooga warramayaa dadkii saalixiinta ahaa iyo ambiyadii oo iyagoo camal wanaagsan samaynaya warwarku uu hayo nebi ibraahim oo kacbada ilaahay dhisayaa ilaahay ka warramay iyo nebiyullaahi ismaaciil waa laba nebi oo isdhalay shaqaday wadaanna waa maxay waa inay kacbada dhisaan waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim rabbana wajcalna muslimayni laka wa min duriyatina waxay leeyihiin oo ilaahay ka warramaya waxaad dadka uga warantaa baa ilaahay leeyahy markuu nebi ibraahim qawaaciddi seeskii guriga baytullaahi alxaraamka seeskiisii markuu dhisayey isaga iyo nebi ismaaciil isagoo dhisaya ilaahay kacbadiisiibuu wuxuu haddana leeyahy rabbanaa taqabal mina ilaahu naga aqbal idan xataa haddaad masaajid dhisto ilaahay bari in alla kaa aqbalo haddaad dhisto la aqbali waayo dee waxba ku tari mayso laakiin asalku waxa weeyaan in maxay aada rabbi weydiisatay inuu kaa aqbalo ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa maryamo hooyadeed nebiyullaahi ciise hooyadii maryamadaa hooyadeed waa nebi ciise ayaydii islaantaasi islaan saalixada bay ahayd id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii baطni muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim bay leedahay ilaahayow wixii maanta calooshayda ku jira bay leedahay adaan kuu gaar yeelay ilmihay umuli doonto bay waxay u gaar yeelaysaa inuu ilaahay gurigiisa ka shaqeeyo shaqo kale inaanay u diri doonin ee fataqabal minii bay haddaba leedahay ilaahu iga aqbal anugu saasaan yeelayaaye rabbow iga aqbal bay leedahay waxaa qur-aanka ilaahay inoogaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim abulambiyaa nebiyullaahi ibraahim oo ilaahay baryaya wuu tukanayaa ilaahay buu waxaanu weydiisanayaa salaadda mid ooga in rabbi ka dhigo salaadda mid tukada maaha mid ooga oogistu yacni waxa weeyaan salaaddu waxay u baahnayd oo dhan mid u dhammeeya rabbi ijcalnii muqiima asalaah wa min duriyatii rabbana wataqabal ducaa buu leeyahy ilaahayow waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga aniga iyo dhashaydaba ilaahu ducadaa iga aqbal buu leeyahy ducadu rabbi raba inuu ka aqbalaa waa maxay salaadu inay noqoto salaad maqbuul cinda allahi noqonaysa idan ayuha alaxiba alambiyaa wasaalixuun hadday sidaa u cabsanayaan oo rabbi weydiisanayaan inuu ka aqbalo innaga maxaad u malaynaysaa marka sidaa ogeed waxaa habboon qof walba cabsidaasi inay ku jirto waxaa habboon qof waliba inuu isku dayo camalkiisa inuu barax tiro
uskaga inuu ka reebo inuu dhilo waxaa habboon qof waliba camalkiisaasi inuu baryada ilaahay u badiyo in rabbi ka aqbalo ilaahay inaad in badan barido in lagaa aqbalo sidaa awgeed ilaahay qur-aanka qaar buu leeyahy qul anfiquu طawcan aw karha lan yutaqabala minkum inakum kuntum qowman faasiqiin baa ilahay yidhi qul anfiquu bixiya baa la yidhi طawcan aw karha ama qasab ku bixiya ama idinkoo ogol bixiya lan yutaqabala minkum baa ilahay yidhi alla idinkama aqbalayo waa gruub munaafiqiin ahaa dabeetana waxaa la leeyahy xoolaha ama idinkoo ogol bixiya ama idinkoo aan ogolayn oo qasab ha laydinkaga qaado zakadii oo ha laydinka qaado lan yutaqabala minkum laydinka aqbali maayo waayo inakum kuntum qowman faasiqiin baa ilahay yidhi duul faasiqiina ba ahaydeen fisqigiina daraaddii looma aqbalayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllahi wabirasuulihi walaa yaatuuna asalaata ila wahum kusaala walaa yunfiquuna ila wahum kaarihuun maxaa loo aqbali waayey nafaqaadkooga waxay ahayn kuwa alla iyo rasuulba ka gaaloobay baa la yidhi salaadana waxay la iman jireen iyagoo caajisa waxa markay wax bixinayaan iyagoo necab bay bixin jireen idan ayuha alaxiba ilaahay wuxuu leeyahy afa aaminuu makra allah falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun waxaynu u baahanay markaa ilaahay fadligiisa waan rajaynaynaa waa damcaynaa waa dadaalaynaa baryadeennu si ha badato nebi ibraahim muxuu lahaa isagoo tawxiidsanayu haddana wuxuu leeyahy wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam waa tawxiidsanayey haddana wuxuu leeyay ilaahayow aniga iyo intaan dhalay inaanu sanamka caabudno rabbow naga fogee buu leeyahy saalixiintu ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa inay cibaadada la imanaya habeenkii intay istaagaan inay tukanayeen haddana warwarka inay qabeen waaladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama waaladiina yaquuluuna rabbana asrif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana garaama aman huwa qaanitun aanaaءa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi ilahay wuxuu leeyay miyay siman yihin ka habeenkii taagan isagoo sujuudsan iyo isagoo taaganba aakhiro ka cabsi qaba ilaahay naxariistiisana rajaynaya ilahay naxariistiisana lagama quusto ilahay naxariistiisana waa la rajeeyaa waladii aطmacu an yakfira lii khati'atida waa la baryaa oo waa la rajaynayaa cabsidana waa jiraysaa markaynu mas'aladan fahamno waxaa fahmaysaa la socota qofka muslimkii mahmaa camil in camalkiisu la yaraado inaad alla agtiisa ka taagin oo moodin inaad wax badan qabatay inaad isku daydo inaad ilaahay weydiisatay inuu kaa aqbalo inaan guruur iyo cujbi kugu dhicin acmaasha qalbiga ku dhacdee ah alcujb inaad isla weynaato ama alguruur inaad adigu ismadax martidba oo istidhaahda wallaahi waxaa tahay adigu nin wadaad oo masaajidda ku ag xidhan oo dadaal badan oo adnaad jannada istasiiso dadka kalena aad naarta ku gurtaa waxba kama jiraan dadka ciddii alla wax ka aqbalay ilaahay baa garan waxaynu se u baahannahay qof kasta oo rabbi si dhaba u garta wuxuu nimco siiyeyna gartaa camalkiisa wuu la yaraadaa wax weyn kulama noqonayo walidalik baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa caaisha waxay ku tiri ilaahay rasuulkiisiiyow adiga dembigaagii horiyo kii dambeba waa la dhaafaye maad iska nasatid habeen oo dhan intuu taagnaada nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa caguhu barareen gomadaha caaisha markaa waxay leedahay adiga dee dembigiiba lagaa dhaafiye maad nasatid wuxuu caaisha nebigu ugu jawaabay afalaa akuunu cabdan shakuura addoon mahadnaqa miyaanan noqonaynin ilaahay hadduu waxaasoo nimca ay siiyey yaa rabbi thank you miyaanan odhanaynin ilaa waad ku mahadsantay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa nebiyullaahi maxamed loo tilmaamay walaa tamnun tastakthir ay laa tamnun bicamalika calaa rabbik tastakhiru waxoogaaga aad shaqaysato ilaahay ha ugu manno sheegan baa la yidhi iyadoo ay kula badan yihiin weligaa ha iska dhaadhicinin wax badan baad qabatay haddaba ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbalay maxaynu ku garanaynaa waxay culammadu yidhahdaan horta ilaahay baa og laakiin
calaamaad baa jira bay yidhaahdeen haddaad aragto isti'naas la rajeeyo in alla ka aqbalay. maxaa ka mid ah? waxay idhahdaan haddaad aragto cibaadaadka oo cibaadaba cibaado kuusii furfurayso adigoo xagga cibaadada u koraya haddaad aragto waa astaan fiican oo loo rajo qabo bay leeyihin in kuwii hore lagaa aqbalay. haddaad aragto adigoo dib u sii socdana khatar, adigoo dib u sii gurmayo dhanka kale u socda. sida ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy faama man acطaa waاtaqaa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusraa baa ilaahay yidhi. ninka bixiya ee alla ka cabsada ee tawxiidka rumeeya aakhiro rumaysta kaas waxaa la yidhi fasanuyasiruhu waxaanu u fududaynaynaa tii fududayd. ta fududay waa diinka islaamka oo dhan. diinka islaamka oo dhami ilaahay qur-aanka wuxuu in badan ku sifaynayaa inuu khafiif yahay, inuu yuriidu allahu bikum اlyusr walaa yuriidu bikum alcusra baa la yidhi. ta fudud baa loo sii fududayn. marka adigoo xagga wanaagga u koraya haddaad aragto istabshir in shaa allah. waxaa laga isti'naasi karaa in wixii hore alla kaa aqbalayo. adigoo dib u guranaya haddaad aragtana wa ama man bakhil waاstagna wakadaba biاlxusna fasanuyasiruhu lilcusra. ninka bakhayla ee kaaftooma alle ka kaaftooma ee aakhira iyo wanaaggaba beeniya ama tawxiidka beeniya kaana ta adag baa loo fudaydiyaa baa la yidhi. gaalnimada adag iyo macaasida iyo rabshadda kuwaasaa loo fudaydiyaa. ilahay wuxuu leeyay wayaziidu allahu aladiina اhtadow huda. kuwa xagga rabbi u hanuuna, kuwa hanuuna ilaahay hanuun buu u kordhiyaa. waladiina اhtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum. waxay culammadu yidhahdeen markaa ihtidaagaasi waxa uu tilmaamayaa qofkii acmaashii markuu isagu la yimi waxoogaa oo sii koraya haddaad aragto xagga khayrka u sii socda wuxuu yahay qof alla hanuuniyey. marka waa qof acmaashiisii hore cinda allaahi wax la aqbalay ee u ekaatay. waxaa kaloo diinku ina baraya acmaal kastoo aynu samayno inaynu jabraanu naqs, inaynu kabno iyo walilictidaar. istikfaartu bay dhahay kahrat اlistikfaari lijabraani الnaqsi walilictidaari min sigari badaacatik bay idhaahdaan. istakfuralaadu aada badisa macnaheedu waxa weeyaan camalkaaga goddaloolooyinku lahaabaad rabtaa inaad ku kabto iyo inaad ilaahay u cudur daarato. oo maalan salaada markaynu ka baxno maxaynu nidhaahnaa ugu horeeya astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah. 3 goor in la istikfarsadaaba ugu horeysa salaada markaad ka baxdo. oo salaaddu waa cibaadee. dadku inta badan waxay dee yaqaaneen astaqfirullah in la yidhaha marka dembiga la galo soo maaha. markaad cibaado ka baxday baa waxa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa maxay astaqfirullah. waa maxay istikfaartanaad markan la imanaysaa? waxay culammadu yidhaahdaa waxay tahay lababa weyt. salaadaadu dee 10% 20% meelaha hadday dhacdo intii kale ilaahu ay qabsanin baad leedahay. ma wada hagaagsanayn wixii aan sameeyeye rabbi inaanu kuu qabsanin oo aad istikfaarta ku kabtaa baad rabtaa. waxaad kaloo rabtaa haddii qof uu wax ku siiyo maalan oo uu abaal weyn kugu leeyahay oo qofkii abaalka kugu lahaa baad maalinu yeedho waad casuuntay ama waxoogaa yaroo hadiyada baad siisay. laakiin waxaad ogtahay waxaan aad bixisay inaanu u cuntamin u qalmin wixii uu qofkani abaalku kugu lahaa. maxaa la sameeyaa markaa? cudurdaar baa lagu kabaade. yacni waxaad qofka u sheegaysaa adigu taagtaadii inaad soo dadaashay laakiin inaanay intani ahayn maxay intuu mudnaa in la siiyo. marka waxaad leedahay waa ka cudur daaranaynaa dee wixii kuu cuntamayay kumaanan siinin ama wixii kuu qalmayay laakiin uun waa intii aanu markaa waxa hadalkani waa ku kabisaad ku kabayso waxoogaagaad bixisay inuu maqbuul agtiisa ka noqdo at least oo aanu odhanin ninkii aad abaalkaa ku lahayd ma intan buu kuuga abaalgudayaa ayaad warka raacinaysaa. ilaahay abaal badan buu inugu leeyahy wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. ilaahay wuxuu nimco ku siiyey ma tirin kartid. waa jirtaa bini aadamku ma cabasho waayo laakiin iminka waxaa laga yaaba inaad leedahay sharcan waaye iyo lacag ma haysta iyo waa
laakiin waad caafimaad qabtaa bal dhakhtarka tagoo dadka maalqabeenka ee buka weydii maxay u baahan tihiin waxaa laga yaaba waxay hanti haystaan oo dhan inay siisan lahaayeen ina maxay wadnaha xanuunaya inuu ka kaco laakiin adigu wadnahaaga iska bugbugle haben iyo maalinbaa bamkaa shaqaynaya markaad hurdiya markaad maba ogid wax weynba kulama aha caafimaadka waxaan ku haysanaa waa gaajoonayna abad la soo taagantay yani markaad nicmada dareemi weydo inta yara nuqsaantee ku haysata unaad dareento bini aadamku waa caynkaa bini aadamku qof way adagtahay inaad aragto qof bini aadam intuu kuu yimaado wuxuu nimco helay kaaga warramaa qof wali waa bal warran marka tiraa wallahi maanta waxay ku dhacay moogtay buu ka bilaabaya yaad ka ashtakoonaysaa ma rabbiga qof waliba wuxuu wadaa uun inta yar ee mushkilada qabsatay ayuu ka warramaya laakiin asalku wuxuu yahay maxay nicmadaa badan ee ilaahayna siiyay inaynu ka mahadnaqo marka waxa weeyaan salaada markaad tukatay waxaad leedahay ilaahayow wixii aad xaq iga mudnayd xaqa tuqaatihi lama imanin intaasaan la imay ilaahu dembigayga dhaaf baad leedahay istikfaartanaad la imanaysa macneed waa caynkaa cibaadaadkao dhan baa qur-aanku inoo tilmaamaya inaynu ku kabno in badanoo ka mid a مثلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم عرفة ومaalmihii ugu khayr badnaaya oo maantoo dhan dadku waa bannaan taagnaayoo ilaahay baryayey ayaa ilaahay wuxuu yidhi markaa carafo ka soo dareertaanna halka dadku ka soo dareeraya ka soo dareera dabeetana wastakfiru llaha istikfaarna ku dara baa la leeyahy ayuha alaxiba ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka saalixiinta ah kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilahay yidhi habeenkii in yar bay seexdaan baa la yidhi dad saalixiin oo ilaahay ka warramo jannada cuyuunteeda iyo nicmadeeda haystaa kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun maxaa lagu xigsiiyey wabilasxaari hum yastakfiruun habeenkii waa taagayin baa la yidhi waqti suxuurka markay gaadheen salaada subax soo dhowdahayna istikfaartay bilaabaan iyagoo caawo oo dhan salaad tukanayay ayay markaa waxay dib u bilaabaan maxay istikfaarta ilahay wuxuu ina leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diinta islaamiga inuu hirgeliya u dadaalayay jihaatamayey wax kasta oo qof bini aadami soo maro nolosha uu soo maray hadday dhulkiisoo laga saaratay hadday dagaaltay hadday gaajatay hadday rabshad wax kastoo bini aadam ku dhaca ayaa soo maray dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi marka aada guusha gaadho ee ilaahay nasrigiisu kuu yimaado ee aada aragto dadkoo diinta koox kooxu soo gelaya istikfaarta badsa baa la yidhi wixii aad soo shaqayso o dhan istikfaar ka dabage saa daraaddeed baa suuraddii u dambaysay qur-aanka soo degtay ka suura ahaan waa idaa ja suurad isku dhan aayadaa soo degay iyada dabadeed laakiin suura kaamila dabadeed ma soo degin ilaahay wuxuu leeyay idaa jaaa nasru llahi waalfatx haddii uu kuu yimaado ilaahay guushiisa iyo furashada rabbi hadday kuu timaado oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka oo koox koox u soo gelaya diinta bini aadamku markuu guulaysto muxuu sameeyaa kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'ahu wuu kibraa inta badan bini aadamku markuu nicmada hele wuu kibraa bal aadanaha u fiirso maalintii xorriyadda maalintii caynkan maxay dowladuhu sameeyaan xooggooda iyo ciidankooda iyo khudbado wadaa ah waa halgannay baa la qaadaa de barhbadhaadhnaydaa la qaadaa soo maaha cid istaakfuralaysato oo ilaahay u toobad keenta miyaa aragtee nebi maxamed markuu maka furanayay makadii laga saaray wuxuu soo galay isagoo neefku fuushanaa dushiisa madaxiisa uu gaadhi ku dhadhow yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigaya ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho waa goorma gaaloo dhan markaad ka guulaysato ee diinta ilaahay kor yeelo ee dadku ay diinta u soo galaan koox koox awal qof baa soo islaamayay wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja aad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya markaa maxay samey baa ilaahay yidhi maxaa ku xiga fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u tasbiixso adigoo xamdigiisa ku dheehaya subxaana allaahi waa nafyi waa ilaahay aad xumaa ka hufayso alxamdu lilaahi waa ammaan waa ilaahay oo aad ammaan oo dhan u sugayso istikfaarkuna waa adigoo dacfigaaga sheeganaya idan ammaan halkii u dambaysay weeyaan ilaahay waxaanu cuntamina inaad naqaa'is oo dhan ka reebtid maxaamidda kamaal oo dhanna aad u nisbaysid
kadibna aad dacfigaaga qiratid oo tidhahdid anna waa toobad keenaya anna waa istikfaarsanaya oo waa toobad keenaya saasaa nabigii la faray calayhi salaatu wasalaam walidaalika markay suuraddani ku soo degtay kadib wuxuu odhan jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu rukuucda iyo sujuudda iyo odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba acmaasha acmaal kalaa lagu kabaa maalan maxaa layna yidhi soonkii markaad soontaan zakaatulfitri haddana bixiya zakaatulfitrigaasi maxay keenaysaa baa layidhi jabraani naqs wixii ramadaanta dhexdeeda idinka dhacdhacay dunuub ama nuqsaan ku dhacay ku kaba baa la yidhi salaadii baad yara sahwiday maxaa la yidhi ka dabagee 2 sujuudood aad ilaahay fooda dhulka u dhigayso waa jabraanu naqsigaagii baad dib u kabaysaa soo duuduuba ayuha alaxiba darsigaygani wuxuu ku kooban yahay markaa kow inta wax qabanaysaa yaan cujbiyo quruur ku dhicin ilaahay baa og inta la aqbalay kaasi waa mid dadaalka inaad badiso oo haddii alla wax kaa aqbalo waxa la hubaa camalka kalena inuu kuu hagaagayo adduunya aakhiraba inaad guulaysanayso acmaashu marka in la aqbalaba inta kale alla sii fudaydiya saalix ka sii dhiga se waxaynu u baahannahay 2 halba inaynu ku dadaallo kow qadiyat alcilmi inaynu ku dadaallo waxa waxayna kaga asaxayaan waa dhib 40 sannadood inaad tukanaysay ilaa haddana aanad aqoonin salaaddu maxay ku burtaa ama maxaa lagu aqbalaa aanad garan waa dhib mas'alat alcilm camalkaad samaynayso inaad isku dayda aqoon inaad u yeelato ka labaadna waa maxay waxyaabaha camalka ama buriya ama nuqsaamiya ama u diida in la aqbalo inaad ka jafi kartid isku daydo intaad ka jafi kartidba inaad ka jaftid ka saddexaadna istikfaarta iyo tawaaduca iyo rabbi isu dhuldhigiisa inaad badsatid ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala intaynu la nimayna allah inaga aqbalo acmaasheenu cinda allahi tii maqbuula in alla ka yeelo waxaa acmaasha burinaya in ilaahay subxaana wa tacaala inaga faydo qalbigeenna in ilaahay subxaana wa tacaala nadiifiyo saafi ka yeelo kuwa muslima oo islaamnimadoodu dhabta ku dhinta in alla inaga yeelo sala allahuma calaa muxamadi wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin